وجنالكين يكيسون كسو هذا مقالكنا مانتا بلس انت انين بلا مقالكنا فضلا هذا نقصو تاي سبسكرايب لكم بلاكنا الفرو بدحلياش ومحاد كأكتحي بدحلياش waxay dunida ka yihiin boqolkiiba 12 qofood aad aragto 12 kamid ah way guran yihiin ama bidixlayaal yihiin hadba sidaad u garanayso dadka bidxani waxay isticmaalaan dhinaca midig ee maskaxdooda halka midiglayaashu ay isticmaalaan dhinaca bidix ee maskaxdooda aqoon-yahanada bidixlayaasha aanka ah waxa kamid ahaa Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin iyo Benjamin Franklin. daraasad la sameeyay waxa la ogaaday in dadka bidixlayaasha ay ku karti badan yihiin wacyigelinta xisaabaadka iyo dhismaha halka midiglayaashu ay ahaan karti badan yihiin dadka bidixlayaasha waxay ku dhib qabaan shay'ada u samaysan midigta sida maqaska keyboardka computerka baabuurta qaar iyo waxyaabo kale oo badan bidixlayaashu waa dad degan aamusan badana waxay u muuqdaan kuwa araysan oo laga baqo balse haddii aad isfahamtaan waa dad aanan laga xiisa dhigin aniga gacan bidixlayaasha ayaa ka tirsanaa sideedii madaxweyne ee ugu dambeeyay Mareykanka afar ayaa gacan bidixlayaal ahaa waxyaabo ay ku fiican yihiin bidixlayaashu waxa kamid ah farshaxanka shiishka dabaasha iyo keenida fikrado waa dad ku hel dheer arrimaha basaasida iyo sirdoonka badana heer sare ayay ka gaaraan cilmi baaris kale waxay muujinaysaa in ilmaha yiri marka uu baranayo habka wax loo cuno uu ku bilaabo go'aantiisa bidixda dadkani waxay aad ugu nugul yihiin madax xanuunka kiisa dhanjafka ah ma og tahay in 13 Agoosto ay tahay maalinta gacan bidixlayaasha adduunka Left Hands Day waxaana la bilaabay in la huso 1996 aragtidaada ka dhiibo siina shargaray asxaabtaada gaarsii